Kenya waxa ay qaaday tallaabooyin door ah oo isxigxiga si ay u baajiso kiiska badda ee maalinta berri ah 15 Maaj dhageysigeedu ka bilaabanayo maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ 16 September 2009 taariikhdan waxaa bilaabmay damaceeda badda dawladda Kenya ayaa baarlamaankeeda u gudbisay cabirka badeed oo ay Soomaaliya rabaan inay muranka kula galaan kaasoo dhan 116 kiiloomitir oo square ah 16 February 2019 Kenya ayaa ceerisay safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi waxa ayna dib ugu yeeratay danjiraha ka fadhiya Muqdisho kadib markii uu sii xoogaysay muranka badda ee labada dhinac 18 February 2019 Kenya ayaa doonaysa in wada xaajood ay labada wadan ka galaan arrinta muranka badda oo ay xal hoose ka gaaraan iyadoo aan la marin maxkamadda caalamiga ee ICJ arrintaasi oo dawladda Soomaaliya dhab ahaan u cuntami weyday 22 January 2020 dawladda Kenya ayaa martiqaad ka baxsan nidaamka diblomaasiyadda ku soo dhaweysay madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubbaland iyo Somaliland iyadoo ugu dan leedahay inay xiriirka Soomaaliya xumayso 31 January 2020 dawladda Kenya ayaa diyaarad ciidan kaga qaaday Kismaayo maxbuuska baxsadka ah ee Cabdirashiid Jaran kaasoo ka soo fakaday xabsi ku yaala Muqdisho waxaana la geeyay magaalada Nairobi Kenya iyadoo aakhirkiina jabhad hubeysan u sameysay oo ka dagaalanta gobolka Gado 2 Oktoobar 2020 dawladda Kenya ayaa martigelisay shir ay lahaayeen madaxda maamulada Puntland, Jubbaland iyo mucaaradka Soomaaliya taasoo ujeedkiisu ahaa in dawladda Soomaaliya culays lagu saaro joojinta kiiska badda ee ICJ Kenya waligeed ma ogoleyn in dacwad lagu dhammeeyo maxkamadda horteeda iyadoo Billowgii ku doodday in maxkamadda ICJ aysan awood sharciyadeed u lahayn kiiska dhowr jeer ayay codsatay in dib loo dhigo dhageysiga dacwada iyo ballamo kale oo mudaysnaa waa laga yeelay marka laga reebo codsigii ugu dambeeyay oo ay maxkamaddu diiday Kenya ayaa rabitaankeedu ahaa inuu meesha ka baxo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ay hadhow si diblomaasiyadeed ula xiriirto maamulka ka dambeeya taasoo aan iyaduna dhicin hadda waxaa cad in Kenya ay ka baqanayso dhageysiga kama dambaysta ah ee berrito ka dhacaya maxkamadda Hague